ku xidhnow badda cas 24 TV. مسؤولينta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa beeniyay warar ay qoreen qaar kamid ah warbaahintu taasi oo ay ku micneeyeen inay tahay been abuur waxa kale oo mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo kamid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Toorno agaasimaha guud ee wasaaraddaasi أحمد أبكر محمد يسدو كلا وزير كحجين كوزارة داسية قار كم إذا مسؤولين تاجاسي مياشة وحياة وزارة داسية وكلن كقبتي مجال هرجيسة أي وحي فاهين كجبحيان شقة وزارة دا يسدو كلا وحياة بها تنصعدا يولبا قرشياشة يسدو كلا هذا الله قيبة كم إذا ورباهين الصومالي لنا يدوان كقرين وزارة داسي وحنا مسؤولين تالكاسي كهالي هذا الذي كم إذا حمان قدر دار من ورباهين وحي oranaysa iyo waxay soo gudbinayso iyo waxay wasaaradda waxbarashada ka sheegaysaba waxay hubto oo xaqiiq ha gudbiso wixii been abuurana waxaan kula muxuu ahaayay had iyo goor la iska ilaahdana wasaaradahan ma cafi doonada waanu ka daba tagi doonaa talaabo aanu ka qaadi doonaa saa la sheegay horta waxaanu ku guda jirnaa qorshihii sanadka 2020 wasaaradda waxbarashada waxay mas'uul ka tahay markaa ubadka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogan gees ilaa gees inay helaan waxbarasho tayo leh taasuna waajib u faray marka dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jira marka ardayda imika dugsiyada ku jirta waa 2,250,000 iyo 340 arday bay xog ururintii u dambeysay sheegaysaa dugsiyada hoose dhexe inay dhigtaan ardayda la doonayay Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaadhay da'da waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sida ku qoran markaa qorsheena qarankana waxa uu 561 arday marka waa dareemaysaa faraqa inoo dhaxeeya ardayda joogta markaa dugsiyadeena ee daada gaadhay iyo ardayda u baahan inay gaadho marka loo eego markaa haynta qaranka iyo dadaalka la sameeyay wax lagu faano runtii laakiin marka la eego baahida taala dalka xagga waxbarashada gaar ahaan ardayda aan iskuulada tagin warwar bay leedahay waxaan u baahanay marka qaran ahaan inaynu soo wada jeesano si ardayda loo gaar lahaa saxaafadda jeer horta waxaan u samaysanay inay baahiso marka wararka bulshada wacyi geliso waddankeena waxa weeye waa xor weeyaan warbaahintu inay hadasho oo dadka warka gaarsiiso laakiin haddana waxaa jira ethics wax la yiraahdo magalaysa hab dhaqan laga doonayo marka qofka saxafiga sida marka professionalska kala duwan baa hab dhaqan laga doonayo qofka hadduu marka wuxuu doono isaga hadlo isagii baa isceebanay horta kow ma qofkana isleedo wax yeelay waxa ka badan inta adigu sharaftaada iyo institution-kaaga yeelayso marka waxa soo noqday in warbaahinta lagu qorayay wasiirkii waa baaritaan sameeyay deetana 300 oo caglaal helay horta waa been way halkaas wax ka jira ma jiro cagla laga helay wasaaradda waxbarashada oo soo baxay oo maanta anaga waa fadhino madaxda wasiirku fadhiyay la arkay qof cagla la helay horta ma jiro haddii la helana qofka horeey qabanaya anagaba koow ka ah de wasiirku nagu hogaaminay aad baan uga xumahay wasaaradda waxbarashada in la yiraahdo musuqmaasuq baa laga baadhaya musuqmaasuq laga baadhayo iyo mid lagu tumay midna ma jirto anoo wasiirkii qofkii ku sareeyay wasaaradda ayaa halka cadeynaan u jirin cid musuqmaasuq lagu tumay iyo gobol lagu tumay iyo waax lagu turjumay madax lagu midna intaas oo tiro oo shaqaalaha baa la qabtay war waa been weeye anoo wasiirkii halka cadeynay waa been waxba kama jiraan cidda doonaysa inay wasaaradda xogteeda ogaatana madaxda ha weydiiyaan laakiin de kaligood yaanay la turjumidee waliba qolada saxaafaddu de saxaafadda anigu waan jecelahay xorta in saxaafad xor ay noqoto laakiin xorriyadda macnaheedu tani ma ahayn qof inaad qof karaamadiisa ku xadgudubto ilaahay baa mar inaga wada mamnuucay qofka naftiisa iyo karaamadiisa iyo maalkiisa qof walba horta intaan sharci la gaadhin arrin kale ba la gaadhin aakhiradaada u turo wasaaradda waxbarashadana wada fiican bay haysataa si madaxdoo dhan iyo shaqaalahana way isla haystaan annagoo isu niyadsan baan wada shaqaynaynaa cid la baadhayo cid kale odhan ma jiro horumarkaasaan ka shaqaynaynaye de horumarkaa ninkii dacadeynayo caruurtaada waxbarashadoodii baa dacadeynaysaa dee caruurtaada lagama celin karee waxaanu kaa codsanaynaa caruurtaada waxbarashadooda ha dacadeynin weliba caruurtaada waxbarashadoodaanu kaa baryayn oon ku leeyahay war ilaahay baan ku dhaarshay caruurtaada waxbarashadooda ka daa
mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa gebi ahaan been abuur ku tilmaamay waxaanay warbaahinta Somaliland u soo jeediyeen inay dhowraan xuquuqaadka muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka. Maxamed Cali Xaashi, telefishinka Badda Cas, magaalada Hargeysa.